الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا القناة كأنبي تكنولوجيا كبحة عشرة ACT وأنا هو محمد علي بلال وحائنو سعودي كورسات اللي يرادو Windows Server 2019 وحانو جوغنا سيرفر كا read only aan u bixinay domain controller waxaan u baahannahay maanta inaynu soo dejino ama roolkaan u baahannahay inaynu domain controlka u baahannahay inaanu role and features aan kasoo dejino soo install gareyno oo aanu ka dhigno read only serverkan joogno waa kii magaciisa la yiraahdo WS read only domain controller kanuna waa keeni weynaa oo wax weeye domain controllerka aan lahayn weeye oo systemka DNS ka noo ahaa waxoo noo ahaa DHCP noo noqon doona insha Allah asaga ayaa waxoo dhan noo noqon doona kan marka active directory uu noo yahay DNS uu noo yahay DHCP uu noo noqon doona insha Allah waxoo dhan asaga noo noqon doona marka kanna waxa weeye active directory weeye oo meesha dhan laga maamulayo waa kan kanuna waxa weeye WS read only domain controller marka waxaan u baahannahay in aynu add and features ku dhufano then next ayaa leedahay haddii aad u baahan tahay page kan inaad marna lagu tusin skip this page ayaa leedahay next ayaa leedahay installationka next ayaa leedahay serverka u baahan tahay waa serverka kan marka waxaa leedahay next baa leedahay marka waxaa u baahan tahay kan active directory domain services add features ayaa leedahay then waxaa leedahay next baa leedahay next install baa leedahay then installation buu noo sameynayaa sida hore oo active directory installationka noogu sameeyay dan promote baan ku sameyn doonaa insha Allah after installation ayaan isku soo noqon doonaa marka installationka noo soo dhameeyo insha Allah wuu noo dhameeyay installationka wuu noo dhameeyay waxaan u baahannahay inaanu promote anano promote this server to domain controller ayaa ku dhufanaysaa then wizardkan ayaa kusoo baxaya marka hore waxaan usoo niri add a new forest ayaan nirahnay laakiin hadda waxaan leenahay add a domain controller to an existing domain marka hore ayuu noogu soo qabanayaa domainkeena haddii domaino badan jiraan halkan ayuu kusoo qabanayaa domaino badan haddii sii jiraan marka domainka kan ayuu noo soo qabtay waxaad dhihi kartaa change baad dhihi kartaa waxaad qori kartaa domain controller kan usernamekiisa iyo passwordka aan ku kala administrator iyo passwordka then okay baa leedahay marka laakiin already onbit.local wuu noo soo qabtay waxaan dhahin lahay change baa leedahay xogaa wuu iga adkaaday I don't know okay halka kan aad leedahay warqada ayaa furaysaa promote server domain baa leedahay halka kan noo soo kacaysaa xoogaa wuu ku dhagay marka caadi weeye halka kan ayaa leedahay marka halka kana waxaa leedahay onbit slash administrator okay administrator baa leedahay tan waxaa leedahay okay baa leedahay
marka halka kan asaa ugu dirid next ayaa leedahay. then waxaa noo soo bixi doona waxaan ka qaban karno muhiim ah. marka ma domain name DNS baa la rabtaa, ma global catalog baa ka rabtaa. marka anagu waxaan dooranaa read only kaliya ayaan u baahanahay, global catalogna ma u baahnin, domain name systemna uma aynu baahnin. wax seeda nooma jiraan hadeer. marka labada tan ayaa tigta ka qaadaysaa, read only baa leedahay. read only markaa ka dhigtid wuxuu noqonayaa serverka kan hadeer anaan configuration active directory kan aan configuration ku sameynayno. waxa weeye haddii aan idin sharxo mar labaad, waxay tahay halka kan xafiis baad ku leedahay, xafiiska waxaa la yidhahdaa a, halka kanna xafiis kale ayaa kugu yaal b. marka xafiiska kan iyo xafiiska kan laba wadan buu ku kala yaal. wadankan kan waxa weeye Soomaaliya, wadanka kanna waxa weeye wadanka kanna waxa weeye wadankan waa Soomaaliya, wadankan waa Soomaaliya, wadanka kanna kasoo qaad waxa weeye Asia. marka kan Soomaaliya ayaa waxaa ka dhigaysaa read only ka dhigaysaa, kanna waxaa ka dhigaysaa domain controlka caadiga ah ee global catalog ayaa ka dhigaysaa. marka waxay ku kala duwan yihiin global catalog everything ayuu hayaa, partial username-ki waxyaabaha samaysan qayb ayuu ka haynayaa. marka waxa weeye full active directory kan way, laakiin kan wax power ma laha, wax ma bedeli karo, waxna ma delete karo, wax ma sameyn karo. marka domain controlkan ugu weyn active directory kan wuxuu noqonayaa Asia ayay noqonaysaa. tanna Soomaaliya waxay noqonaysaa mid branchiga loogu talagalay kaliya maadaama ay dad yar ka shaqeeyaan. maadaama ay dad yar ka shaqeynayaan waxaad u baahan tahay dadka yarka ah. halka kan ka soo qaad waxaa ka shaqeeya 20 qof ka shaqeeya. marka halkana waxaa dhigaysaa, halkana waxaa dhigaysaa read only baa dhigaysaa. marka halka kanna waxaa ka shaqeeya oo Asia ah dad badan, aad u badan ayaa ka shaqeeya. marka halka kana waxaa dhigaysaa active directory keena weyna oo dhamaystiran, DNS keeni iyo global catalog inaan tigno ah. marka inka kan wax ma bedeli karo, waxa kama bedeli karo, just halka kan ayaa synchronization ka dhacaysaa, halka kan ayaa synchronization ka dhacaysaa. that's it, intaa way, because of domain kan ayuu join ku yahay. eriyada waa taas. marka read only ayaa dooranaysaa, wax seed nooma samaysano. marka password ayaa samaysanaysaa haddii ay wax gaaraan domainkan kale, si aad micnihii restore ugu samaysid. then next baa leedahay, read only options ayaa kusoo baxaya. optionka kan marka branch baan soo sameynay, branchigaas Soomaaliya ku yaalay oo read only-ga aan dhigayno, serverkan aan dhigayno. marka qofka managerka ka ah ayaa administrative uga dhigay ka dhaca, sababtoo adiga oo dooranaya qofka halka kan ka dooranaya gelinaya, ma garatay. halka kan ayaa kaga dari ka dhaca userka. dan waa gelinaysaa credentialka, waxaa gelinaysaa keena weyn, server keena weyna oo noo yaala Asia ayaa gelinaysaa passwordkiisa. dan qofka waxaa leedahay ku dar in qofka lagu daro. halkan ayaa accountiga laga daraya qofka, dan accountiga ka soo diraysa. hadda wax ma sameyn karo qofka kan, wuxuu qaban karo ma jiro, sababtoo ah awood badan ma laha read only-ga. marka next ayaa leedahay. marka aan user samaysatid ayaad micnihii users weli ma aynan abuurin, user marka la sameeyo ayaa laga sameyn karaa, usoo noqon kartaa. marka replicate kee baa la dhigi karaa. marka domain hal domain baa loo jiraa, marka ma isagaa ka dhigaysaa oo replicate ula sameynaysaa mise any domain. marka any domain control ayaa leeyahay, sababtoo domaino badan ayaa replicate kula sameyn karaa. marka wuxuuna siinayaa meesha noogu store garanaya database log pathkii. marka waxaan leenahay next, haddana review-ga next baa leedahay. dan prerequisite check ayuu noo marinayaa. marka waxaan wax ka qabanayno wuu sameeyey waa ws read only domain controller.onbit.local ayay noqotay. halka hadda ay la fiirisaan. okay,
install baa leedahay. marka installationkaas noo dhamaystirayaa. installationka marka uu saan noogu dhamaystiro ayaan isku saarayaa. then marka uu soo dhameeyo insha Allah nagu soo celiyo ayaan arki doonaa. marka haddii aan halkaan timaadid kan restarting ayuu weli isku wadaa. markuu restartiga dhameeyo ayaan arki doonaa. kanna waxa weeye serverkeena weynaa domain controllerkeena iyo DNS keena weeye. kanna waa kii weynaa aan ka dhignay domain controllerka iyo active directory kan ka dhignay. marka xagga waxyaabo badan baa kusoo tagay. scasi ayaan storage marka gaarnaa kan ayaan ka dhigi doonaa. kan waxaan ka dhigi doonaa wax waliba oo aan u baahanahay in serverka kan noo qabto. serverkan waxyaabo badan ayuu noo qaban doonaa insha Allah. this one wuu soo daarayaa. marka uu soo daarayaan sugeynaa. then wuu soo daaray. marka keen wuu noo soo daarmay. waxaanu sameynaynaa in aynu ku galno waanu galnay read only domain controller. marka waxaan idin tusayaa user ayaan sameynayaa. userka aan sameeyo wuxuu kasoo muuqan doonaa domain controllerkeena weyn oo kan ah ayuu kasoo muuqan doonaa. waan isla arki doonaa synchronization si iskula sameynayaan. everything waa arki doontaa. noo soo kaco. xoogaa waqti yar buu qaadanayaa. dhib ma lahan. iska dul qaadanaynaa. xoogaa refreshkiisa waqtiga laakiin waxaan aadaynaa active directory users and computers. marka halka kan aad timaadid si arkaysid on bitcoin waxa weeye aan soo sameynay. marka computeriska inta computer client waa ku jira. marka waa kaas domain controller keeni. userskina waa kan. marka user ayaan sameynaynaa. waxaa leedahay new baa leedahay. halka kan ayaa waxaa leedahay user baa leedahay. halkan waxaa sameynaysaa waxa la yiraahdo Muhammad. last name kana Ali. Muhammad Ali ayaa leedahay. user login
Muhammad ayaa leedahay at onbit ayaa leedahay then next password baa u sameynaysaa oo ah abc123 intaan abc123 intaan marka user must change password next login your password never expire user cannot change password waxa dhan waan ku sameeyaa laakiin tan hore aan u deenayaa markaasaa ku dhufanaysaa then finish ayaa leedahay userka waa kan halka kan ayaa imaanaysaa userkiisa kan ma userska markaa tagtid Muhammad Muhammad waa halkan marka halka kan ayaa imaanaysaa Muhammad waad qaadaysaa halka kan ayaa gelinaysaa yes baa leedahay Muhammad userska ayaan gelinay waa kan Muhammad okay marka waa iska xiraysaa kan okay waxaad aadaysaa Windows serverkeena halka kan ayaa tagaysaa computers and kan waa kii domain controllerkeeni weynaa weeye oo ahaa global catalog iyo DNS noo ahaaba marka haddii aad halkan timaadid oo users aad tagtid halkan maxaa ku haysaa Maxamed Cali Yuusuf Maxamed Cali synchronization ayuu kula sameynayaa marka waa kan haddii aan u baahan tahay hadda inaad leedid waa fiirin kadhaa saanaa tagaysaa this is Muhammad haddii aad u baahan tahay inaad leedid delete ayaa leedahay yes oo tagay si Muhammad Cali joogo halkan tag refresh ayaa leedahay hadda Maxamed waa kas halka kan waaye refresh markaad tirahdid maxaa dhacaya wuu ka baxay hadda waa ila aragtaan baan filayaa synchronization baa ka dhexeeya inay wax walba waa isla wadaagayaan data marka saas ayaan waxaan ku sameynay waxa loo yaqaano read only domain controller oo noo ah kan oo kasoo qaad isagoo Soomaaliya noo yaalo serverka kan iyo serverka kan kale oo noo yaalo Asia wadan ka mid ah dan ay wada sameynayaan communication marka waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha allah lectureka ku xig waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaano DHCP assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh